soo dhaweynta madaxweynaha Puntland loogu sameeyay duleedka magaalada Garowe ayaa waxaa ka qayb galay madaxweyne ku-xigeenka Puntland labada gole ee dawladda Puntland shacab weyne kala duwan waxaana soo dhaweynta kadib madaxweyne Cabdiweli Gaas loo galbiyay qasriga madaxtooyada dawladda Puntland halkaas warbaahinta kula hadlay wuxuuna ka warbixiyay safaradii muddada bisha ku dhow qaatay ugu maqnaa magaalooyinka Gaalkacyo iyo Xamar madaxweynuhu wuxuu ka warbixiyay mashaariic horumarineed ee dawladdu ka fulisay magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug oo ku tilmaamay inay ahayd guulo wax ku ool ah oo u soo hoyday shacabka reer Puntland ee ku dhaqan Gaalkacyo aadnay oo dhibka ka dhacay magaalada Gaalkacyo hawada xiriirta oo aadnay nabadeynteedii ilaahayna waa lagu guuleeyay maanta Gaalkacyo waa nabad dadka degan nabad iyo kooda noolhiin iyo dhismo wanaag iyo maaragtay sida awal markaas u wada noolaayeen هذا يفتح كذا عليه وأنا كحنا هسه وبدعين هذا الحرب وإذا قلت هاي تذكر شعب كهنا وصل في ساعة أيام ما يلا لون دوريهاي ورمرك دور ده كود ده كاس دوري وهو السعوداء إن شاء الله هو سوق بالقبل الدورة هولي أي كايس حكومة المجال الداخلي وحاجة أما بدنا المجال ده أما ورمرين ده دور كا ولا حريرتي أمني Cabdiweli Maxamed Cali Gaas madaxweynaha dawladda Puntland ayaa dhanka kale ka warbixiyay safar shaqo in ka badan 10 casho qaatay ugu maqnaa magaalada Muqdisho halkaas oo kaga qayb galay shir looga hadlayay mustaqbalka Soomaaliya gedi socodka doorashooyinka 2016 طبعا hawlo badan oo la qabtay aan la qabanin waxay ahayd waqtiga hadda in la joogo dadku ay doorasho xor ah oo xalaal ah وهل قفي هل عد أي ودريران لكن هذا أفراد تصبد عدين فسنا وحي كان دبع عصمة كان إن رجع فكروا قاعدين يعوض ماشي درجة هذه لها ذلك بدنا واعي حملين موقف واعي شيئين قام كدور النماء وحفر بعض واعي كحملين فسنا وحي مهم قلت وحوي وحصلا هاي طريق صح هاي قاعدين نظام صح هاي جوتين sababta waxa weeye shacbiga Soomaaliya meel joogaanba ay u baahan yihiin matalaad dhab ah qofka wuxuu rabaa deegaan iyo matalaad dhab ah shacbiga ay helaan in habkii qabadiga ah oo 16 sano la soo dhaafay lagu qaybsanayay inuusan dadka anfacaynin inuusan markii hore xal baa la bilayay laakiin ma ahayn wixii sax ah cadaalad ma aysan ahayn 16 sano lagu soo caanamaalay waxa loo baahan in laga duulo waa fislaadeen soo dheer joogto dadku waa bisil yahay isbedelkii dawliga oo dhacay wadanka ka dhacayay arrintan arrin la jaan qaadaysa ma aysan ahayn marka dabcan wadada Soomaaliyeed waxa naga dhaxeeyaan waxa u baahanahay marka in la isu tanaasulo laakiin haddii lagu dhaganaado wixii lagu dhaganay 16 sano la soo dhaafay aanan hore u socon mayno waa isla xarayaayo ugu dhacdo dalka ku imaanaya marka anagu waxaan rabnaa dadka Puntland ay rabaan in hore loo socdo in la gudbo in la horumaro in nidaam sax oo dawliga la qaato in dadku tira shacbiga dhaba ay yeeshaan wixii marka sutanaazul iyo wada hadalna diyaar bay gurmada Puntland wahay horseed ka nabad yahay horseedka federaalka Soomaaliya ay waxa guul ah Puntland waxa weeye barnaamijka iyada ay wada waligeed dabada ka riixaysay oo ahaa in Soomaaliya oo federaal ah oo xukunka laga soo bilaabo gunta bottom up approach la yiraahdo in Soomaaliya qaadato waana ku guuleysatay waxa horseedka marba oo ahaa waxay ahayd Puntland taas ay guul ugu filan laakiin waxaan rabaa in barnaamijkaas la cayiriyo la tayeeyo lana dadkuna ay hore u socdaan marka Cabdi Xamiid Salaabare Kalsan TV Garowe